السلام عليكم kusoo dhawaad kanaalka horumarka ardayda iyo bulshada Mano Production. Maanta muuqaalkan waxaan ku kala saari doonaa farqiga u dhaxeeyo web development and web design. macnaha waxaa laga wadaa kan soo saaro nashqada website-ka iyo kan qoro website-ka. marka haddii aad ku cusub tahay kanaalkan isku day inaad subscribe sarto anoo socto casharo iyo koorsooyin aad u xiiso badan. muuqaalkan wuxuu ka mid yahay كورسدي لما قاعد web development 101 oo lagu baranayay qaabka loo soo saari karo website adigoo adeegsanaysid HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript iyo waxyaalo kala badan. maxay tahay farqiga u dhaxeeya web development iyo web designer? xaqiiqdii haddii la dhaho labada doorto maxay caawinayaan inay soo saaraan website-ka, macnaha inuu website-ku u jiro, laakiin waxay ku lug leeyihiin mid kastaba uu sameyn karaa ama uu hawshiis ay tahay inuu ka qayb qaato markii la sameynayo website-ka. developer waxaa la dhahaa kan oo sameeyo structure-ka muuqaalka structure-ka website-ka asigoo adeegsanaya languages asigoo qoray coding-ka. laakiin kan web designer-ka waxaa la dhahaa asigana kan isticmaalo visual, macnaha koodii intaysan dadku aysan daawanin website-ka sidoo noqon doona, macnaha ay ku arki doonaan dadkaas website-kaas ayuu asigu ku lug leeyahay. farqiyadii waxay yihiin dhammaantood waan sii arki doonaa. marka maxaa la dhahaa web designer? web designer waxaa la dhahaa kan sameeyo website-ka inuu noqdo stylekiisa iyo inuu soo baxo mid fiican website-ka, kaas ayaa la dhahaa website-ka web designer. marka web designer-ku muxuu adeegsadaa? badna horta waxaa la adeegsadaa tools iyo programyo oo loogu talagalay in lagu design gareeyo website ahaada ama barnaamijyo kale ahaadaan. marka waxaan ka sameyn doonaa muuqaal gooni ah oo waxaan soo dhigi doonaa kanaalka Mano Production. marka web designer-ka haddii si toosna kugu sheego waa kan qaabeeyo website-ka asigoo adeegsanayo haddii ay noqoto Photoshop ayuu adeegsanayaa ama visual element si kale ayuu sameynayaa oo si uu u sameeyo website-ka. marka kan la dhaho web designer asigu uu yaqaani karaa, macnaha uu ka sii karaa HTML iyo CSS, laakiin asiga muhiimadiisu waxa ay tahay inuu sameeyo style-ka. CSS macnaha waxaa laga wadaa in lagu qurxiyo style-ka design-ka page ama website-ka uu leeyahay. haddii aynu u imaano web developer-ka lahaa, marka qaybta la dhaho web developer waa meesha ugu muhiimsan ee website-kaaga uu kusoo jiri karo. marka haddii aynu eegno kan la yiraahdo web developer-ka, muhiimadda wuxuu u saaraa badnaasiga coding-ka oo website-ka sida loo qorayo. koodii hoosh waxay kasoo go'daa web designer-ka kan la yiraahdo, asi ay soo design gareynayo qaabka website-ku soo bixi lahay qaabka website-ku uu noqon lahay, kabacdi wuxuu u dhiibayaa web developer-ka. web developer-ka marka asigu qaabkii nashqadii la soo dhiibay ayuu wuxuu ka dhigayaa mid casri oo code ku saabsan oo la dhigi karo website waayadoodii. marka asiga muhiimadda badna wuxuu adeegsadaa sida HTML iyo CSS iyo. marka web development iyo web designer farqiga u dhaxeeya waa fahamtayaan filayaa. marka hadda adiga maxaad u baahan tahay inaad noqotid web designer ama web developer? horta haddii aad soo daabatay muuqaalkan halii hore waa fahamtayaan filayaa. web designer-ka kan yiraahdo oo iyo web developer macnaha kan nashqadeeyo website-ka, nashqada soo dejiyo, iyo kan oo soo saaro website-ka. halka marka waxaan ku tusayaa table ama shax tahay project-yaasha iyo sida uu noqon doono waxyaalaha loo baahan yahay marka project-ga la sameynayo, qofka sameynayo ayaan ku tusayaa. marka waxaa meeshan ku qoran markii la design gareynayo home page waxaa sameynaya design-kaas web designer ayaa sameynayo. markii la dhisayo contact form, macnaha form oo dadka la soo xiriirayo, macnaha website-yada waxaa jiro oo aad ku aragtid badnaa contact us, macnaha ninkan la soo xiriiraya ayaa la wadaa. kaas marka waxaa sameeyo website-kaas oo meesha page-kaas uu noqonayo contact-ga waxaa sameynayo kaas web developer-ka. markii la sameynayo mobile application waxaa sameeyo web developer-ka. markii la soo brand gareynayo, macnaha website-ka la xayeysiinayo waxaas loo sameynayo website cusub waxaa sameeyo waxaasna web designer-ka.
markii la hosti gareynayo ama wixii error iyo qaladada ku imaado waxaa sameeyo web developer-ka. waxa error iyo fixing iyo hosting waxaas maxaan kiriyaa dhamaantooda waxaan ku arki doonaa koorsadan dhameystiran haddii aad iibsatid. marka fiidiyowyada iyo sawirada yaa habeeyo, kuwaas maxaa habeeyo web designer-ka. marka haddii aan khiyaano kale kuu sheego waxay tahay web designer iyo web developer labadooda hal qof oo isku noqon karaan. haddii labada qof oo mid isku noqdo, labadooda hal qof isku noqdo, hadhow muhiimad wuxuu u saarayaa mid gooni ah. tusaale ahaan web designer-ka wuxuu muhiimad si toos u saarayaa web developer. web designer-ka asigu waxa uu sameeyaa inuu design sameeyo, web developer-kana uu soo sameeyo. marka waxay tahay marka uu howl badan tahay ee dhib tahayna waa kan web developer-ka oo code ka qorayo. designer-ka macnaha si wixiisa waa visual wax iska waayo oo muhiimad badna ma la saaro. labadooda marka waa isku noqon karaa, hal qof oo noqon karaa. marka adiga kay doonaysaa marka inaad noqotid halkan ay ku aragtay projectiga iyo qofka loogu baahan yahay wuxuu sameyn doono, qofka sameyn doono ayaad ku soo karsheegay waxyaalaha ugu muhiimsan. marka imise lacag ay heli karaan ama ay qaataan web designer-ka iyo web developer-ka ah. markii la yimaado dadka ama kuwa ka shaqeeyo design-ka iyo web developer-ka lacag ay qaataan waxaa loo qiyaasaa adiga markii uu yahay qofka labadaba isku bartay $65 ilaa $100 saacadii. saacadii kaliya wuxuu qaadan karaa lahay $65 ilaa $100. yani waxaan kusoo sameeyey research waana sax sababtoo ah waxaad sameynaysaa website-kii saacadda la saacada ku qaadanaysaa, waxaad ku iibsanaysaa saacadda aad ku sameysay. marka kan designer-ka waxa uu qaataa $10 ilaa $50 inta u dhaxaysa ayuu saacadii ku qaataa kan designer-ka oo shaqadeeya website-ka. laakiin kan oo sameeyo developer-ka hadii gooni uu yahay asiga kaligiis uu yahay wuxuu qaataa $30 ilaa $65 bar saacadiiba. marka farqiga iyo sidii lacagta ku qaadanaya dhamaantood muuqaalkan ayaan ku soo sharxay. muuqaalkan marka wuxuu ka mid ahaa koorsadii barashada web development 101. waxaan koorsaan ku soo saartay YouTube-ka Mono Production. waa muuqaal cusub oo ku saabsan koorsadii ahayd barashada web development oo lagu baranayay qaabka loo sameyn karo website-yada. maanta muuqaalka wuxuu ku saabsan yahay toolska aad u baahan tahay inaad haysatid markii la joogo inaad sameysid website, iyo toolsyo badan aan kuu sheegi doonaa qaar oo ka mid ah toolska loo baahan yahay markii la design gareynayo website iyo markii la qorayo website. muuqaalkan marka wuxuu diiradda saarayaa design haddii aad baranaysid ama haddii aad doonaysid inaad barato designing-ka ama haddii aad doonaysid inaad noqoto web developer kan codeska qoro. labadooda barnaamijyada ama toolska ugu muhiimsan lagama maarmaanka ah in aad haysatid ayaan kuu kala sheegi doonaa. haddii aad muuqaalkan ama YouTube-kan aad ku cusub tahay isku day inaad subscribe saarto. okay marka haddii aan gudageyno muuqaalkiina wuxuu ku saabsan yahay tools iyo barnaamijyada dhamaantood u baahan tahay inaad haysatid. marka kow waxaa ah markii la joogo graphic design waxaan kusoo sheegaya ama kusoo qaadanaya muuqaalkan laba program oo caansan markii la joogo designing-ka, ha noqdaan website-ka ama document wax walba ha noqdaan oo design u baahan la adeegsado oo qof kasto designer uu haysto ay tahay. waa kow waxaa ka ah sketch waa program aad iyo aad khatar u ah oo loogu talagalay in lagu design gareeyo ha badnaato apps-ka iyo website-yada. sketch marka website-kan sida uu soo degi lahayd dhamaantood waxaan ku dhigayaa description-ka videogan hoostiisa. marka sketch waxaa awood u leedahay inaad si fudud waqti yar kooban aad ku design gareysid website-yo ama wax walba si fudud ayaad ku heli kartaa aadna ku isticmaali kartaa. haddii u baahan tahay marka warbixin intaas kasii dheer marka waxaad tegaysaa description-ka videogan website-ka ayuu si toos kugu keenaya website-kan. marka sketch waxaad ku heli kartaa marka qiimo jaban waa $99 haddii aad rabtid mid casri ah oo aad tahay graphic designer weyn ama
free baad ku heli kartaa oo maalmo kooban ay si free kugu siinayaan. marka sketch wuxuu ku siin karaa marka extension oo loogu talagalay markii la editing garanayo ama aad design garanaysid, ama wuxuu ku siinayaa in aad ku baran kartid sida qaabka loo isticmaalo sketchkan applicationkan. marka community-na waxay tahay in dadka la xiriiri kartid, supportigana aad caawinaa wax weydiisan kartid. barnaamijka xiga waxay tahay badnaa la adeegsado inay tahay mid aad u caan ah oo magaciisa la yiraahdo Adobe Photoshop. marka waa program casri ah oo badnaa graphic designer la-aantiisa wax ma qaban karaan. Adobe Photoshop dadka dhan waa wada yaqaanaan, faahfaahin dheeri uma baahno. waxaan ka sameynay asigana koorsooyin, description-ka video hoostiisa ayaa noo soo codsan kartaa haddii aad u baahan tahay koorsooyinkaas oo kaga hadlayo Adobe Photoshop iyo dhammaan creative cloud-ka kuwa hoos yimaado sida Premiere Pro iyo video editing iyo After Effects dhammaantooda. marka asigana Adobe Photoshop waxay tahay inaad ku isticmaali kartid designing-ka, ha noqoto website si loo habeeyo website loo design gareyn karo waa lagu habeyn karaa. marka waxaa jiro cashiro iyo muuqaalo oo kugu caawin kara waxaas camal. aniga waxaan kuu soo dhigay marka halkaas description-ka video hoostiisa. koorsadan ama videogan wuxuu ka mid yahay koorsadii ahayd web development 101. muhiimadda waxaan saaraynaa anaga ay tahay coding-ka markay timaado designing waxaas ma doonayno, development ayaan ay tahay muhiimadda koorsadan. marka haddii aan ka imaadno designing-ka aan kasoo tagno, waxaa jira marka labo program oo aan soo qaatay inay yihiin kuwa ugu caansan oo lagu habeeyo oona lagu design gareeyo oona lagu develop gareeyo marka ay timaado coding-ka website-ka. kow waxaa ah Sublime Text waa mid horta ayna caadi ahayn, waa iyaga horta aniga casri waayo horta asig feature-kiisa iyo dhammaantiisa. marka mid ayaan u arki doonaa koorsada intaan ku guda jirno. Sublime Text sidee u soo degi kartaa marka saan u joogtid kaliya waxaad dhehaysaa dowladka. marka linkigiisa ama sublimetext.com waxaan kugu siinayaa description video hoostiisa, booqo halkaas kana soo deg. laakiin haddii aad baahan tahay mid kale waxaa jira Practice la dhahayo. Practice waa mid casri ah oo kan ayaan aniga isticmaali doonaa oo ka fudud. inta koorsada socoto waan isticmaali doonaa. sidee u soo degay markaasi aad bay u fududahay. dowlad Practice ayaa dhufanaysa markii uu linkigan practice.io oo ku keeno waxaad ku dhufanaysaa bas dowlad Practice-kaas. marka ku soo dego waa ku soo shumanaysaa sida loo installation waad ka sameynaysaa. marka kan ayay tahay marka anaga midka aan adeegsan doono koorsada intay socoto oo aan ku qori doono development-ga ama ha noqdo website aan ku dhisi doono. marka saa u joogto Practice.io-ga iyo muhiimadiisa wixiis dhan maxaad ku eegi doontaa muuqaalka dambeeyo. graphic design waxaas aniga diirad saarayno sababtoo ah waxaa jira koorsooyin kale aan ka sameynay gooni ah. ka Sublime Text iyo Practice.io ayaan ku adeegsan doonaa muuqaalka inta aan ku wada jirno ama koorsada inta aan ku wada jirno. marka Practice waa soo degsanaysaa haddii aan ku tuso soo degsato dowlad markaa ku dhufato wuxuu ku keenayaa linkiga. marka linkigaas ayaad soo dowlad galaysanaysaa. computerka ayaad ku shubaysaa Windows 8 ahaado Windows 10 Windows 7 waa ku isticmaali kartaa. marka koorsada intay socoto waa ku wada eegi doonaa dhammaanteena. muuqaalka xigan wuxuu noqon doonaa Practice iyo qaababka loo isticmaali karo, qaababka loo heli karo. marka la muuqaal cusub muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay structure-ka ugu muhiimsan uu leeyahay website kasta. marka maxaa loo baahan yahay website kasta inuu yeesho iyo qaababka loo kala kasayo ama aad ku fahmi kartid ayaan kugu sharxi doonaa muuqaalkan. marka haddii aad ku cusub tahay kanaalkan isku day inaad subscribe saarto. muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay ama uu ka mid yahay koorsadii ahayd web development 101 oo lagu baranayay koorsadii web development. marka koorsada waxaa la weydiiyay web development 101 maxaa lagu bixisay. web development 101 waxaan ugu bixisay
adiga goobta shaqada joogto ama xafiiska ama guriga joogto ayaad ka baran kartaa koorsadan lifetime-kaaga waad ku baran kartaa oo waqti kugu maciinayso so marka one on one ayaa ugu baxshay marka loo baahno waqti go'an inaad isfiirsato ama aad cashiradeeda qaadato muuqaalkan ugu dugalno okay marka maxaa loo baahan yahay inuu yeeshto website kasta qaabka dhismeedkiisa iyo siduu u egyahay marka waxa ay tahay inuu website kasta uu leeyahay header ama meel lagu magacaabo navigation meesha uu website-ka ka eegayo ama uu soo saarayo ninka iskale website-ka ama cid iskale ama ganacsiga iskaleba loogada noqoto oo macnaha website-kaas ama linkiyada ugu muhiimsan ama saameynta kule markasta la booqdo website-ka marka la soo galo ayaa la soo saaraa meesha waxaa la dhahaa navigation pane marka waa qodobkii koowaad wuxuu ahaa inuu website kasta yeeshto header ama navigation bar waxa marka website kasta waa inuu yeeshtaa call to action waxay tahay website kasta waa inuu lahaadaa markii koow la soo booqdoba meel uu dadka ama userka ama qofka soo booqdo website-kaas uu ka fahmi karo waxa loo baahan yahay inuu yeeshto hadda tusaale ahaan website-ka aan ku jirno waxaa la sketch.com marka sketch.com meeshan wuxuu ku sheegaa try for free easy pricing qiimo iyo macna inaad free ku heli karto ayuu ka sheegaa marka juice-ka kale dadka soo booqdo userka oo website-ka soo booqdo wuxuu dhihi karaa free ahaan isku daya ama dhiibaya waa inuu marka website kasta uu lahaadaa login ama sign in meelahaas uu soo qabanayo waxaa la kuwaas call to action la call to action kaas website-ka dadku wuxuu ka caawinayaa inuu ogaado website-kaas waxa uu ku socdo ama waxa loo baahan yahay okay qodobka saddexaad marka waxa ay tahay website kasta waa inuu yeeshtaa images iyo qoraalo iyo wax walba images ha noqdaan qoraalo ha noqdaan backgrounds ha noqdaan icons ha noqdaan saad ujeedo kan waxa uu leeyahay sawiro leeyahay icons leeyahay marka waa website kasta laga maarmaan inuu yeeshto waa looga baahan yahay qodobka afraad wuxuu yahay website-ka wuxuu yeelan karaa sidebar macnaheedu waxay tahay hadda tusaale ahaan meeshan saa ujeedo sawirkan ama videogan oo animationka geeskiis waxaa ku yaalo qoraalkaas marka waxaa la dhinacan waa sawir iyo video saaran dhinacan waxay tahay sidebar badnaan sidebar lama isticmaalo website-yada oo waxaa isticmaala kaliya wararka iyo kuwaas laakiin kuwa professionalka kuwa oo dadka creativity-kooda ka caawinaya iyo hada camal sketch-kan muu badno kuwaas ayaa lahaa marka sidebar in la isticmaalo sidebarka saa ujeedaa dhinacan waxaa yaalo boxya ayaa yaalaan boxyada marka geeskan waxaa ka jiro qoraalkaas marka waxaa la dhihi karaa sidebar marka qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay loo baahan yahay website kasta inuu yeeshto footer footer waxaa la yiraahdaa website kasta ama page kasta oo website-ka la booqdo meesha ugu hooseyso ayaa waxaa la dhahaa footer muuqaalkan wuxuu ku saabsanaay 5 qaab oo ugu caansan ayna tahay website kasta inuu yeeshto ayaan kugu soo hadalnay marka haddii aad u baahan tahay muuqaalkan website-kan sketch aan ku wada jirnay aan ka sharaxaynay muxuu ku saabsan yahay waxaad ka fiirin kartaa ama aad ka ogaan kartaa maxaa loo isticmaalaa description-ka video-ga aan hoostiisa ku soo dhigayo oo ku saabsan sketch markaas ayaad keli kartaa wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha ka caawinayo marka haddii aad ugu cusubtahay kanaalkan ha iloow inaad subscribe saarto aan muuqaalkan la egrayso koorsadan waxay ku saabsan yahay tadniyan ku ogeysiiyo web development 101 sida website-ka loogu samaysan karo adoo isticmaalaysid html adoo isticmaalaysid css adigoo isticmaalaysid bootstrap dhammaantood marka waan eegi doonaa oo had koorsadii hore dhaceeda dhan waa soo dhameynay keliya marka waxaa inoogu xig inaan koorsadii bilaabno muuqaalka xiga wuxuu noqon doonaa marka koorsada in la bilaabo